in baa soo galay magaalada markaasuu nin sheekhu argo wuxuu ku yidhi magaaladii camirnayd dhexgee magaaladii camirnayd ee dhisnayd baan rabaa inay tusee magaaladana waa ku cusubahay igee ibraahim al-adham baa kaxeeyay allah u naxariistee magaaladii camirnayd baan rabtaa miyaha soo raac uu kaxeeyo magaaladii buu ka saaray markaa buu yidhi war magaaladii camirnayd ee suuqa iyo macdaarada iyo bakhaarada iyo ganacsiga lahayd baan ku weydiinayaa adiguna magaalada bannaankeegii baad iigu wadaaye wuxuu yidhi magaaladii camirnayd oo dhowdahay ina mari qabuuraha intuu dhex joojiyey buu ku yidhi magaaladii camirnayd waa taasuu ka yidhi wuxuu yidhi waa qabuurihii wuxuu yidhi tan cidda timaadda kama noqoto laakiin dadka magaalada maalin walba 40-50 qof baa ka soo baxda halkana yimaadaanoo halkana camirmaysa dadka halkan soo galana ma noqdaan buu yidhi taa way naaqusmaysaa tanna way biiraysaa buu ka yidhi yaa muqafal innagu waxaan leenahay magaaladii baydhabo way dhisantay magaaladu ma dhismine qabuuraha dhismaayo magaaladu may biiraysaa mise qabuuraha biiraya bal iga jawaaba qabuuraha camirmaayo waayo dadka magaalada ku nool maalin walba 50-40 qof baa dhimanaysa oo laga kaxaynaya laakiin dadka qabuuraha kama soo noqdaan iyo marka ta aan laga soo noqon baa camiraysa tan laga baxayo dadkeedu way sii yaraanayaan ta aan laga soo noqonayn baa iyadu camirmaysa waa qabuuraha weeyaan waa qabuuraha habeenada ka mid ah ayaa nabigeenu calayhi salaatu wasalaam ummulmu'miniin caaisha radiyallahu canha aqalkeedu nebigu jiifay markaasuu nebigu ku yidhi caaisha ma iska kaydayn ilaahay han caabude markaa bay ku tidhi ha iska cibaadayso deedna nebigu intuu sara kacay buu tahaaro qaatay uu qubaystay deedna u weysaystay salaad buu nebigu bilaabay calayhi salaatu wasalaam salaaddii buu nebigu aad u dheereeyey deedna caaisha radiyallahu canha waxay tidhi waan gamcay in yar kadib baan soo kacay aqalkii baan taataabtay agtaydii nebigu ma jiifo waan eegay ma taagna nebigu ma joogo meesha waxay gala dareenoo waxaan is idhi kollay nebigu reerihiisii kaluu caawa u guro uu reerihiisii kalu u tegey markaasaa ka soo daba baxay tidhi waxaan arkay shaksi qabuurihii baqiic dul taagan oo ooyaya oo ducaynaya markaasaan gadaashiisa nebiga fadhiistay markaasaa fikiroonaysa idhi alla caaishaay waad ceebowday maanta adigana maseer baa ku soo kiciyey xilliga oo waxaad is tiri nebigu reerihiisii kale reer ka midoo kollay u tegey bal doondoon nebi maxamedna qabuuruhu du taagan yahay uu ooyaya muntasifa alleyl ayaa nebigu salaataleylkii markuu tukaday qabuuraha intuu isdul taagay buu nebigu qabuuraha ayuu dul joogsado aakhiradu nebigu xasuusanaya daadna markaasee caaisha hayar intay u soo noqotay ayay qol aqalkeygii soo gashay gogoshiiba hoosta ka gashay markaa nebigu waa u jeedaa calayhi salaatu wasalaam min mucjizaatihi waxaa ka mida baa la yidhi sida nebi maxamed xagga hore wax uga arko ayuu xagga dambana uga arki jiray baa la yidhi daadna markaasuu nebigu markiiba u arkay uu iska soo noqday deedna ugu yimiday caaisha oo gogoshii markaa faraashkii hoosta ka gashay buu u yimiday markaabuu nebigu kor fadhiista wuxuu ku yidhi caaisha maxaa dhacay buu adiga soo jeeday markaa bay ku tiri waxba markaasuu yidhi sawdigii ilaa qabuuraha ay daba yimiday ma markaasay tiri yaa rasuul allah adiguna waadi kalaad socotaa annaguna waadi kalaa socnaa bay ku tiri adiguna waddo kalaad socotaa oo aakhiro iyo qabuur iyo maaragtane xisaab iyo janno iyo naar iyo diin iyo ummad baad ka fikiraysaa annaguna bashar baanoo dumar baanoo waa iska maseeraynaa ba tiri raalli ah waa iska saxay ku tiri waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam haddaad ilaahay ka cabsato oo aakhiradu kula weynaato oo mar walba dhimashadu ku hor taallo noloshaada adduunyadu way toosnaan haddaad allihii ku abuuray mar walbaad xasuusan tahay aakhirada aad u socotana ay ku hor taallo in la dhimanayna aad ku xisaabtamaysid xaqda ilaahay waad ku toosnaan xuquuqda bini aadamkana waad iska ilaalin